Huutiyiinta Yemen Abdulmalik Al-Houthi ayaa wacd ku maray in Yemen ay xoojin doonto weerarada ka dhanka ah Israa'iil. Hogaamiyaha oo halay khudbad dheer jeediyay ayaa sheegay in weerarada xagga cirka ah ee lagu bartilmaameedsaday keydka shidaalka iyo kaabiyaasha tamarta ee dekedda Hudayda ayaa horseedi doonto weerar dheeraad oo ka dhan ah Israa'iil. Hogaamiyaha ayaa tilmaamay in duqeymaha Hudayda aanan baqdin gelin doonin shacabka Yemen isla markaana aanan ka leexin doonin mowqifkoodii ay ku garab taagan yihiin shacabka Falastiiniyiinta. Dadka Yemen waxay ku faraxsan yihiin inay si toos ah isaga hor yimaadaan cadowga Sahyuuniyadda, waana dad geesiyaal ah, ayuu yiri hogaamiyaha Huutiyiinta oo sidoo kale yiri weerarka lagu soo qaaday Yemen ma ahan mid faa'iido u leh cadowga, mana abuuri doonto arqalad. Isagoo la daawanayay telefishinka afka Huutiyiinta ku hadla ee Al-Masirah iyo shaashadaha kale ee dalkaasi ayaa waxa uu ku dhawaajiyay in howlgallada ay muddooyinkii ugu dambeysay taageerada ugu muujinayeen dadka reer Gaza u galay marxaladii shanaad. Marxaladani uu sheegay inay ka adkaan doonto marxaladihii hore isla markaana ay ku adkaan doonto Israa'iil iyo xulufadeedii ugu weynaa ee Mareykanka. Hogaamiyaha Huutiyiinta ayaa xusay in hub cusub u adeegsan doonto dagaalka Israa'iil, isaga oo sheegay in hubkani uu yahay midka ay ugu talagaleen marxaladda shanaad ee dagaalka. Inkastoo aanan sheegin waxa hubkaasi isugu jira, hogaamiyaha ayaa waxa uu sheegay in Israa'iil ay eedi doonto duqeymaha ay ka geystay Hudayda, waxaana uu carabka ku adkeeyay in ay hadaf ka dhigan doonto magaalada Tel Aviv. Cadowgu wuxuu horey u awoodi waayay inuu joojiyo howlgalladii militari kuwaasi oo kor u kacayay oo hogeystay. Cadowgu ma ahaan doono mid nabad qaba, xitaa Tel Aviv ma ahaan doonto meel amni uu ka jira, khatartuna waa ay sii socon doontaa, ayuu yiri Abdulmalik Al-Houthi hogaamiyaha Huutiyiinta. Waxaa kale uu yiri Yemen kama koobnaan doonto mowqifkeedii ku aadan in la taageero Falastiin. Sahyuuniyaddu waa inay ogaadaan in hogaamiyaashoodu ay u soo dhaweeyaan khatarta sii kordhaya. Hogaamiyaha Huutiyiinta ayaa inkastoo ku daray inta ay sii dheeraataba gardarada lagu hayo marinka Gaza waa inta ay sii socon doonto weeraradeena. Qalqal amni ayaa laga dareemayaa gobolka kadib duqeyntii is-xigxigtay ee ay Israa'iil la beegsatay dekedda Hudayda.